dibadbaxyada ka socda dalka Iiraan ee hadda socda bisha Janaayo 2026 waxay gaareen heer aad u sarreeya oo saameyn ku yeelata guud ahaan xasilloonida dalkaas. Dibadbaxyadan oo bilowday dhamaadkii bishii Diseembar 2025 waxay hadda marayaan toddobaadkii labaad iyadoo ay ku fideen in ka badan 100 gobol. Sababta ugu weyn ayaa ah qiimo dhac baahsan oo ku yimid lacagta dalkaas iyadoo sicir barra aad u sarreeya oo saameyn ku yeeshay dhammaan nolosha dalka. Dibadbaxyadu waxay ka bilowdeen suuqa ugu weyn dalkaas ee lagu magacaabo Tahraan Grand Bazaar, halka ganacsatadii hore ee dowladda taageeri jiray hadda ay ka soo horjeesteen. Dagaalkii dhexmaray Iiraan iyo Israa'iil bishii Juun 2025 ayaa keenay in dhaqaalaha dalka uu sii liito, taas oo sii kordhisay cadaadiska dadweynaha. Inkastoo ay dhaqaalaha ka bilowdeen, hadda dibadbaxayaashu waxay ku baaqayaan in la rido nidaamka wadaadada ah ee dalkaas ka taliyo, iyadoo laga maqlayo halku-dhigyo ka dhan ah hogaamiyaasha sare Ayatollah Al-Khamenei. Dibadbaxyada ugu xoogan waxay ka socdaan magaalooyinka Tahraan, Mashhad, Tabriz iyo gobollada ay ka degan yihiin Kurdiyiinta iyo dadka laga tiro badan yahay. Hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa soo sheegay in ugu yaraan 65 qofood lagu dilay halka in ka badan 2003 qof la xiray tan iyo markii dibadbaxyaashu ay bilowdeen. Dowladda ayaa gabi ahaanba hawada ka saartay adeegga internetka si uu u xannibto isgaarsiinta dibadbaxyaasha iyo faafinta muuqaalada. Markii ugu horeysay muddo dheer, dowladda ayaa geysay ciidanka dhulka ilaalada kacdoonka si ay u caburiyaan dibadbaxyaasha gobollada qaar. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka digay in Iiraan ay la kulmi doonto cawaaqib xun haddii ay sii kordhiso dilalka dadka rayidka ah. Waxay walaac ka muujiyeen tirada dhimashada iyagoo ugu baaqay dowladda inay xushmeeyaan xuquuqda dadka ee ah inay si nabad ah u mudaharaadaan. Xaaladda Iiraan ee bishii Janaayo 2026 waa mid kacsan, waxaana la filayaa in ay sii socdaan dibadbaxyaasha iyadoo hoggaanka dalkaas uu wajahayo mid ka mid ah caqabadihii ugu adkaa ee soo mara.